السلام عليكم kusoo dhawo walaal channelkan haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada iyo warbixinada aan halkan kusoo daabacno waxaan maanta soo qaadan doonaa qormo yar oo aan ka soo xiganay buugga guurdoon rag iyo gayaan dumar oo uu qoray qoraa Maxamed Xasan Maxamed waxaynu ku saabsan tahay habka ay isku baran jireen wiilashii iyo gabdhihii hore iyo kuwa haatan sida ay isku bartaan haddii aynu ku hormarno wiilashii iyo gabdhihii hore sida ay isku baran jireen habka barashada wiilka iyo gabdhaha haasaawaya ee dhaqankeena ku salaysan waxay martaa marxalado kala gedisan oo qaata mararka qaar gu'yaal goobaha isbarashada iyo kala aragti qaadashada waxay kow ka ahayd goobaha ciyaar gudka haddaan qoyska labada qof ee isu doonayaan iyagu toos isu aqoon ama aysan dheg maqal isku raadsan goobaha ciyaar gudka waxay ahaayeen haddaan milcisano wax yar waa meelo lagu soo bandhigo heesaha iyo maansooyinka kale oo la isugu jiibiyo waxaad moodaa dhalinyaradu in muddadan dambe aysan fikir fiican ka haysan marka hees ay maqlaanna waxay u qaadanayaan tan muusikada leh ee la isruxo arrintuse sidaasi ma ahan oo waxaa jira heeso dhaqan ahaan markay ku jiraan dhalinyaradu xilliga guurdoonka ay isugu yimaadaan meelaha ay ku kulmaan ayna tiriyaan waa heeso dhinacyo badan loo adeegsado dhinac waa madadaalo dhinac waa xog waraysi oo waxyaalaha dhacaya maalintii ayaa warbaahin ahaan loo kala warqaataa hanaan kalena waa arrimaha mahadhooyinka ee ceebaha salka ku haya kana dhacay deegaanka ayaa laisugu gudbiyaa badanaa waxaa la tumaa golayaasha ciyaar gudka xilliyada barwaaqada oo xaajada gayaanka iyo guurka la olkomiyo waxayna heesahaasi ku bilaabaan dhalinta marka ay damcaan allahayow kufrin mayno kibir ugu dhowaan mayne sacabka unbaa kalkii galay ayna ula jeedaan inaysan xumaan iyo dembi alle ay kaga gelayaan aysan ka ahayn garaacista sacabka iyo ciyaartu laakiin ay tahay waqtigii ku habboonaa in dhalinyaradu isu timaado si ay danahooda guurdoon iyo guuxa ku jira ugu haasaawaan waxaa jira rag iska wareega oo had iyo goor ciyaaraha agaasima waxayna ka dulqabsadaan meelaha lagu ogyahay inay gabdho joogaan iyagoo adeegsanaya wax la dhaho dabraac waa dab la shidayo kaasi oo laga hurinayo reerka laga dulqabsanayo ciyaarta ee gabdhaha lagu ogyahay markaasi raggaas ciyaar gudka ahi markay dabka shidaan reerkana ka dulqabsadaan ciyaarta waxay ku furfurtaan erayadooda iyagoo raba inay iska hubiyaan gabdhaha sidoo kalena ay xaalka reerka inuu nabdoon yahay iyo in dhibaato kala jirto ay kala ogaan rabaan waxayna adeegsadaan kelmadahan waa dheg oo warka ma dharagtee waa dhul oo wax jira mooyee reerku nabad ma soo galay gabdhuhu waxay ku jawaabaan markaasi oo ay soo baxaan dhinacoodana ka soo galaan ciyaarta cawdu billah belabayd cawo daran ka yaasiin in shar laba sharkeeliin sheekada inoo wada halkaasaa laga bilaabaa marka heesta haddiise aysan gabdhihii dibadda u soo bixin ama ay raagaan haddana kelmado kale ayay ku celiyaan raggii ciyaar gudka ahaa oo nooc kale ah oo ay ka mid yihiin miiganay marti haddaad tahay reerkana maal u soo galay muska kaama soo eegeen mid kalea odhanaya isagana aamine ilwaad qurux way soo ordi lahayde ee aar baa hor yurura oo ay ka wadaan gabdhuhu way u soo bixi lahaayeen ciyaarta laakiin waalidkood baa hortaagan mid kalea isna odhanaya oo malaha jecel in wax la sugo aadna u nacabaysanaya in la tago quudaraysanayana in la soo bixi doono waryaynaan degdegine war waa gabarh suldaan dhalay saxarla hooyadeed tahay sallibay ku hurudaaye waa la soo sabayaaye ha u samir la'aanina goobta ciyaar gudkana haddaysan gabdho joogin waa gelgelin lagu kala guuray oo kale oo macno ma lahan halkaasaa waxaa ka bilowda heesaha la dhaho golokafuul oo goobta laga mariyo heesahaasina uma baahna in lasoo fakaro marka heesahaasi waxay ku qotamaan googaalaysi iyo xujo furid waxaa kaloo meeshaasi ka soo baxa garnaqsi ku salaysan murti heesaad laisugu jawaab celinayo iyadoo laisugu duur xulayo haween iyo rag gayaan iyo gaclaysi matalan haddii aan ka soo qaadano mid ka mid a heesahaasi heelomaalka ee golokafuulka ah kuwa sidii xarxidhaalaha laisugu googaalaystay ayaa waxaa ka mid a ninkii ayaa odhanaya siisowga shaaximan inkastuu shareer maro aan shaagba loo banjarinayn haddaad sheegto shaacir baa tahay haddii kalena sheekada iida shaambad inana oo ladan wiil shabaab ahina guursaday
oo sheekh wacan ku mehersaday. Shuhuudkani wuxuu taro haddaad sheegto shaacir baa tahay, haddii kalena sheekada iida. 5 jeer meel uu roob helay oo shuux yari ka wacan yahay, haddaad sheegto shaacir baa tahay, haddii kalena sheekada iida. Gabadhii xirxiraalahaasi la weydiiyey waxay iyana ku furtay siisowga shaaximan ee aan shaagna loo banjarinayn waa awrkayagan ina sharaf. Shaambadinana oo ladan wiil shabaab ahina guursaday oo sheekh wacan ka mehersaday. Shuhuudkana wuxuu taro sheegayo anaa furay, waa shay markhaatiya oo sharcigaa sidaa dhigaya. 5 jeer meel uusa roob helay oo shuux yari ka wacan yahay, taa sheegi mayne intaa uu sheeqa tahay iyo shaydaankaaga weydii. Maansada kale ee barashada badanaa raggu haweenka ugu gaatamaan ama ay rabaan haweenayda ay u socdaan aysanna garanayn markaasi kana dhex gasho gabdho kale waxay ku baaraan erayadan. Hayinkii baxsani awrta waa ugu horreeyaaye, haljireedu geelay sidii hir u laacdaaye, neefkii habsami ahi jeedaalkuu ka hanfariyaaye, wiilkii halyeeyihii ragguu hayga dheer yahaye, adiguna hablaha waxaad ku tahay heegadoo kale horba garanay hoobaan la mood hogashadaadii, hagoogta iska qaad naag gobaa hadal la taartaaye. maanta dhalinta magaalada ayuu yidhi qoraaga, aniga waxaan ka odhan lahaa golayaasha ciyaar gudka ah waa leeyihiin, waxaase ka maqan xigmaddii murtida lahayd ee Soomaalida caanka ku ahayd. waayo isticmaalka farsamooyinka casriga ah wuxuu sababay in dhalinyaradu goobo badan isugu soo gasho, siiba sheekada arrimaha bulshada ee ay ka mid yihiin Facebook, Twitter iyo Skype. Online chat-ka ayaa ka mid ah goobaha waqtigan shabaha ciyaar gudkii miyiga. Barashada kadib waxaa jira tijaabooyin la ismariyo looguna talagalay ogaanshaha kartida iyo garaadka qofka intuu yahay. Tijaabooyinkaasna xilliyo kala duwan ayaa si aan la filanayn ama hab ogaansho la'aan ah la isu weedaarsadaa. waad ku mahadsan tahay la socodka janaalkan. fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. mahadsanid.